بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هلكم waxaan iskaga soo daynaynaa taxane aad u kooban باذن الله oo ugu magac daray القيم الإنسانية في الإسلام. muxuu ahaa qiyamka wanaagsan, akhlaaqda wanaagsan insaanka iyo bini aadamkan intooda badan inay lahaadaan laga doonayo ay leeyihiin islaamka iyo risaaladan ilaahayna subxaanahu wa tacaala ay dhiirigelisay ayba soobaheeda in badan oo kamid u soo degtay ay sugtay ayaynu tilmaamaynaa insha allahu tacaala. qiyamkaas ama alqiyam alinsaaniya fi lislaam dad badan baa wax ka qoray oo kala duwan oo muxuu siyaabo kala duwan u tilmaamay, عناوين كلا دوان أما محوها مواضيع كلا دوان كهذلي إن شاء الله تعالى حلقات كأنه وحنا ربنا نحوق سارون أن دول استاجو نلا إلى هذا الشيخ الدكتور عبد الله بن علي محوها لكتشر ومحاضرة وجدية الله الدابعي قضبة ودول استاجي قضبة ده سنجعل استأنون إن دول استاجنا إن شاء الله تعالى بشهر رمضان هدي إلى هاي هذا inta badan isaga ayuu ma soo qaadan marka qaadkood inaan wax ku daro waa suuragal waan tarjumayaa inteeda badan ama af Soomaali waan ku soo gudbinayaa laakiin inta badan ninka doctorka oo la yiraahdo Sheikh Dr. Abdullah bin Ali muxuu ahaa muxaadaro u jeediyay oo buug laga dhigay ama kitaab laga dhigay ayaan qodobadii uu tilmaamay xoogeeda soo qaadanaynaa biidnillaahi tacaala. waxaan uga dan leenahay dadkeenu inaan in fara badan aynu isku wacyigelino islaamkan iyo risaaladan ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimaha ay leedahay, qiimaha inoo leedahay adduunkeena, qiimaha inoo leedahay aakhiradeenna. haddaynu in fara badan risaaladan ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyamkeeda waaweyn ee u soo degtay ay ilaalinayso aynu ilaalinana waxaa la hubaa wax fara badan oo danteena adduun ah inay hagaagayso, wax badan oo danteena aakhira ahna inay wanaagsanaanayso ayaa la hubaa. marka ninka doctorka oo markuu arinta ka hadlay marka wuxuu yiri alqiyam al-asasiyya wa hiya alqiyam al-insaniyya al-fadila allati la yakhtalifu alayha ahad. wuxuu qiyamka asaasiga ee laga maarmaanka ah ee aan doonayo buu inaan kelmadeeda ku furfurto waxa weeye waa qiyamka wanaagsan ee sareysa ee aadka u fiican ee bini aadamku wax isku khilaafay aysan jirin ka sidqi wal amaana, sida runta oo kale, sida muxuu ahaa amaanada oo kale, sida ixtiraam al-aakhir qofka kale oo la ixtiraamo yani oo gogol dhac weeyaan. قيبها كلا وتلمامي وحوي القيم العليا وهي القيم الكلية الكبرى التي تسمو بالإنسان إلى معالي الأمور. قيم ككلام دون يقول إن تلمامه وحوي وقيم كواوين أما وأرمها واوين محوها بني آدم كان بني آدم نمدي سكروا قادسة شرفتي سئي قيم كيسة كروا قادسة بني آدم كإن بدن أو كم ذا وكجد ونانيو محو حيوانات كي مخلوق كلا وكجد ونانيو ويان يسقى سير رعيا وحولي وترفع مستواه على سائر المخلوقات. قيم كاس أو بني آدم كسر مرينيسا أما كدويسا مخلوقات كإنتي سكرة قيم كوحة كم ذا قيمة الحق أرنت حق اللي هذا قيمة العبودية الله إلا عابد سبحانه وتعالى قيمة العدل عدل قيمة الإحسان سمفلك قيمة الحكمة حكمة أو شيء والبا ماشا كوهبون إن لا ديغو ماشا ومتيستو إن لا ديغو يكوا كلا الله مذا يعني وتعد هذه القيم من أرقى القيم الإسلامية وأسماها وأعلاها على الإطلاق. قيم كان صوشين الحق، العبودية، العدل، الإحسان، الحكمة وحوري وقيم كواوين قيمها بدن وقصر رئيسة الرسالة الإلهي القرآن أسودك أتمت إني حقيقيسو ويان محوسير رعية أوري قيم كاس محوها كسب الشدو هي قيم كا هدي كسفة وذا بلشدو هدي بلشدو قيم كنوع عاسة الرماها النوع عاسة تلمام إن أي يالتو بلشدها سوحوري بلشد قيمة له أو وناكسن أي نقطها أي نقطة يسا يعني قيمك كلا أو تلمامي محوها دكتور كانوا وحوية مركو أريد تلمامي الدكتور عبد الله بن علي وحوية القيم الحضارية. قيم كلا إلى هذا قيم كحضارات قيم كأرمها بلشدة حضارة يصدحجلك يا أقونتا يا إعمارك يا محوها وحسو كردنتا كسابسن قيم كإيجا هنا وحوية وهي القيم المتعلقة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالبناء الحضاري.
muxuu dhismaha ummadeed ummaddu ay dhismayso aqoonteedu ummaddu ay dhismayso wacyigeedu ummaddu ay dhismayso insijaamkeeda iyo isla saanqaadkeedu ay dhismayso ummaddu ay dhismayso muxuu ahaa iyada lafteedu xagga nolosheeda xagga aqooneed xagga caafimaad yani nolosheedu ay dhismayso ummaddu ay noqonayso ummad koonka wax ku soo kordhisa qiyamka isaga wuxuu yiri qiyamka waxa kamida al-istikhlaaf يعني استخلاف إله سبحانه وتعالى وكدغي محو أها بني آدمك خليفة الله في الأرض الله وكدغي سبحانه وتعالى إلهينا وكيل أغنها أو كله دولكن دولك أنت أوضح حيسا إنا وكيل أغنها رب سبحانه وتعالى أو مركا إلهي إن أبورتي هدو وكيل كادغي وحال دونيا إن دو وكالة دا إلهي نتكسو بحدو أدوح الله كاد دونيا الله إنك دونيا الله دمانو أيا الله ربا وحكم ذا أنت المامين حضارية المسؤولية قف ولما إنه قرته مسؤولية ده يعني مسؤولية ده في مسؤوليات كانوا وكلا درجة وياه مسؤول قف والبو إنك مدوا مسؤول مركب مسؤوليات هي مسؤوليات إن لا قرته إن لا صابح إن لا قموا مسؤولية ده الحرية حرية دي قيمها أي لا ده المساواة سنانت أيدتك السنادان الله سناده قانونك الله سناده هانتيدا أمد الله سناده رصاصك إيو بلشود واحد إلى هذا الله سناده المساواة العمل محوها وحصوصار يشق أمد محوها كسل وهس بدن وحصوصار لهين وحقبض لهينه وحيكهص دعيسة ما شاء الله كدوني سبحانه وتعالى القوة أمد أود له إيو محوها الأمن نبت قليو السلام وقيب كم ذا نبت قليو الجمال قروحدا waxaasoo idil wax weey iyaguna waa qiyam xadaari la yiraahdo fiir marka qiyamku inta uu kala baxayaan yaani qiyamku intaasoo noocado kala duwan ayay yeelanayaan القيم الأساسية القيم العليا القيم الحضارية iyo waliba القيم الخلقية قيم kala akhlaaqeed oo fara badan قيم ka akhlaaqeed iyaguna waxa la yiraahdaa وهي القيم المتعلقة بتكوين السلوك الخلقي الفاضل عند المسلم وقيمك أخلاقيات قفك مسلم كأكدجيس قف مسلمة قفك مسلم كأكدجيس قف مسلم وقيمة له قف مسلم هو ناقصا قف مسلم هو بني آدم كدجيس قيم كوحة كوكا المحبة جعل قف كان إنه النقطة قف خير كلا جعل بني آدم قف بني آدم كجعل قف كون كان جعل إنه النقطة المحبة الوئام ضد أمد وحصور دويسة وحرورسة محو قيب كلا وحلمدا البر الأمانة الصدق الأخوة التعاون انت أصلا يعني أفرسه البر وسمفل ويان ونكفل أمانة أمد يدنا يعني أمانة وحوي وحبها وقيمها بدن إلهي سبحانه وتعالى وكو قيمة وكو شرف قفك اللي قد دوني أي كمته الصدق الرن الأخوة ولا النمو الأخوة الإنسانية والأخوة الدينية ولا النمو بين آدم النمو يا ولا النمو الدينيات انت يعني التعاون ده إسكال ميسانية وحسلا قبانية تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني الوفاء في هذا أوفن بلن كصبحت بلن دورد بلن إلالين الوفاء وحكلوا أو كم الصبر تحمل الكيسي الصبر تحمل أتكيسي صبر كي تحمل ما أها أو كلي سان مرة بدل أن مودنه مركي وحقول عن مصيبة أتكيسي كأنه عاسة معها الصبر تحمل وحصار تحمل بأباهية أقونت إلا كرر صدا تحمل بي أباهنتها مسؤولية ده إن لقى صوابها تحمل يا صبر بي أباهنتها مصيبة مركي كقول عن أتكيسي يا صبر بي أباهنتها مركي الصبر تحمل ومد أتكيسي له ومد محوها ريزيلينسي وحلا يراهدو أتكيسي رانديس udul qaadanaysa maxaa mashaakilaatka doonaysa inay ka taqallubto oo ay maxaa mashaakilaatka ka baxdo la tafaacisho dhibaatada as-sabr waa qayb kamida weeyaan الشكر إلهي سبحانه وتعالى يعني في الشكر شكر isaguna waa nuucyo fara badan weeye شكر لله وشكر للناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله qof kan ku shukrinin allahi abu makhluuqa وناقة أسمية الله أبورتنا كبر شكرني سبحانه وتعالى مركع الشكر فيري يعني خلق الشكر خلق وضمها تصنتهاي جزاك الله خيرا خلق النوع عاسى خلق الشكر إن الله إصبره إن الله كشكرنا سبحانه وتعالى شكر قلنا وحوة يفيري وتفعيل نعم الله سبحانه وتعالى نعم الله إن نسيه ولا تفاعله ولا لفل قاله ويان
caqliga alla ina siiyey maqalka alla ina siiyey dhagaha alla ina siiyey oo dhan oo laga shaqaysiiyo shukriga qaybo ka mid kuwaas weeyaan ashukr waxa kale alxayaa xishood oo waxa xun laga xishoodo waxa xun oo dhan noocu dooni ba han noqde laga xishoodo an-nusx daacadnimo ummadda daacad loo noqdo loo naseexeeyo lala taliyo wanaageeda loo tilmaamo ar-raxma naxariis iyo isu naxariisasho iyo isu naxariisasho waa maxay oo kaleeto xiwaar dood hadal furan wada sheekaysi xiwaar ummad aan xiwaari karin oon kala duwanaanshaha aqbali karin oo inay muxuu ahaa afkaar ku kala duwanaata aan ogolayn ee doonayso inay hal namad kaliya wada ahaato ummad ma noqon karta yani xiwaar waxaa kaloo ka mid ah ixtiraam al-aakhar qofka kale ee ka aragti duwan oo la ixtiraamo oo la qadariyo kullu haadihi iyo kuwa kaloo fara badanu waa qiyamka wanaagsan ee bini aadamku marka uu doonayo inuu qiimo yeesho ay lagama maarmaanka u tahay inuu bini aadamku ku sifoobo ay lagama maarmaanka u tahay inuu bini aadamku ku sifoobo waa qiyamka wanaagsan ee risaaladan ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u soo degtay inay bini aadamka ay muxuuha u tilmaanto oo ay u xaqiijiso oo ay ku hagto ay u soo degtay weeyaan waa waxyaabaha quraankan ilaahay subxaanahu wa tacaala suurat al-faatiha ilaa barabanaas inta u dhaxaysa markaad akhrido inaha hadda aan soo tilmaanay iyo in kale ayuu ka agwareegi in fara badan inta badan inaha aan soo tilmaanay ayuu faahfaahinaya oo ka agwareegaya saadarteed kuwa iyaga ku sifayn inaan ku sifowno oon isu tilmaano oon hab dhaqan ka dhigano oon hab nololeedkeenu uu sidaa noqdaaho waxay wax badan ka taraysaa ummadnimadeena fi hadhihi dunya inaan ummad qiimo la noqono iyo shakhsi qiimo la inaad noqoto oo noqono adduunkan waxay wax badan ka taraysaa السعادة والنجاة في الآخرة ليبان إيو محوها النجاة كإنه الله إن بدبادي مالك آخرة أي واحد بدن كتريسا صدرت هذا وحين أسوت المامي دونا إن شاء الله تعالى لو حلقة أو صوصعة قيم كأيجا كوا كمدا وذوجد واحد فربضا عنوية كوا موذ دول استاجد دونا إن شاء الله تعالى لكن كوا كمدا أي دول استاجد دونا حلقات كصوصعة بإذن الله تعالى إنه بشهر رمضان إسلام وذاقينه وإنه أبحني القيم الإنسانية في الإسلام قيم كوناكسن لقما مارمانك أوه قفك إيا أمده لقما مارمانك أوه هدي وقفك دونية إنه نقضى قفك قوليسته هدي وقفك دونية إنه نقضى قف محوها ليبانة هدي أمده دونية إنه نقضى أمد قوليسته هدي أمده دونية إنه نقضى أمد محوها ليبانته قيمka lagaba maarmaanku ee faraha badan kuwa kamida ayaynu dul istaagi doonaa insha Allah taala intaynu xalaqo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgaliyo wad mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh